السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni ugu horeeyey ee koorsada HTML CSS aynu ku balansanayn. idan maalinta cashirka intuu socdo waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo intaan ciwaan sida ila tahay waa ilaa iyo toddoba ciwaan oo waaweyn ayaan ka hadli doonaa. waxaa ugu horeyn doonaa maxaa loo yaqaanaa HTML, waxaan ku xijinaynaa waa maxay CSS, maxaa farqiga u dhexeeya, maxaan ka faa'iidayaa haddii aan koorskan qaato, taariikhda HTML ay soo martay, yaa qaadan doona koorsadan, maxaa lagaaga baahan yahay. intaas ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. fideogan waa iska hordhac, insha allah youtube-kana wuu yaalaa isagoo fasaxan, laakiin waxyaabaha kale dhan waxaad ku qasban tahay inaad website-keena ka iibsato si aad markaa ula socoto koorsadan. waayahay aan ku bilaawno waa maxay HTML waa luqad asaasi ah oo lagu dhiso website-yada. haddii aan soo koobno intaas ayay noqonaysaa. waa maxay HTML haddii lagu yiraahdo waxaad dhahaysaa waa luqad asaasi ah oo lagu dhiso website-yada. idan HTML maxaa laga keenaa asal ahaan? waxaa laga soo gaabiyey Hypertext Markup Language. dabcan kooraska intuu socdo waxaa jiri doona quizzes fara badan. ereyada qaar waa ku qasban tahay markaa inaad xifdiso. isku day markaa inaad hoos ka xariiqato ama meel aad ku yara calaamadaysato. HTML waxaa laga soo gaabiyey Hypertext Markup Language. shaqadeeda ugu weyn markaan fiirino waxay soo bandhigtaa wax bogga uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen qoraallo, sawiro, liisyo iyo wixii la mid ah. idan haddii aan usoo gudubno waa maxay CSS, waa luqad loo adeegsado qurxinta iyo qaabeynta HTML-ka hadda aad soo dhistay ee website-kaaga aad kusoo diyaarisay si aad uga soo bandhigto markaa sawirada, muuqaalada iyo waxyaabahaas. luqadda kale ee loo adeegsado in lagu qurxiyo oo lagu qaabeeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa CSS. iyadana waxaa laga soo gaabiyaa Cascading Style Sheet. CSS waxay xakamaysaa waxyaabo badan sida hoos kaaga muuqata. 1 midabka shayga, 2 farta shayga uu yeelanayo, cabirkiisa iyo wixii la mid ah. waa maxay farqiga u dhexeeya? wuxuu noqonayaa haddii aan soo koobno HTML waa waxa kuu muuqda, haddaad si kale u raarana waa page content. page-kan wuxuu ka samaysan yahay ayaa waxaa loo yaqaanaa HTML. CSS-na wuxuu noqonayaa sida boggaaga uu u muuqan doono, design-ka uu yeelan doono waxaa loo yaqaanaa CSS. haddii aad si fudud u fiiriso labada sawir, midka dhanka bidixda yaala waa page lagu dhisay keliya HTML, ma qaabaysna mana quruxsana. function haddii loogu talagalay inuu shaqeeyo wuu shaqeyn karaa, laakiin wax indhaha soo jiidanaya maahan. dhanka bidigta ah fiir sida uu qurux badan yahay, kalarada uu leeyahay, qaabka isku dul saaran yihiin iyo waxyaabahaas oo dhan. idan farqiga u dhexeeya intaas waay. HTML maxay qabataa? waa page content, waxa kuu muuqda page-ka ayay kuusoo bandhigaysaa. CSS-na wixii HTML lagu soo sameeyey ayay qurxinaysaa oo suugo u yara daraysaa, ma fahmaysaa? idan marka haddii aan u dhimaano koorsadan haddii aan qaato maxaan ka faa'iidaya? HTML waxaa ku dhisi doontaa horta hore haddii aad HTML barato qaabka boggaaga uu noqon doono, structure-ku yeelan doono ayaad ku dhisan doontaa. CSS haddii aad ku dirsatana waxaad ku qurxisanaysaa muuqaalka boggaaga ama website-kaaga. HTML markaad boggaaga kusoo qaabayso ee aad kusoo dhisto wixii aad ku qurxin lahayd ee aad ku dhuurin lahayd wuxuu noqon doonaa CSS. ayagoo wada jira marka maxay kuu suuragelin lahayd? waxaa ka faa'iidaysaa inaad ku dhisto website casri ah sida website blog dhammaystiran, portfolio adig kuu gaara, responsive landing page, login and registration form iyo wixii la mid ah. intaan oo dhan insha allah waa arki doonaa mid inagoo markaa sharxeena ama samaynayna. adiga nafsadaadana assignment ahaan lagugu diri doonaayo inaad soo samaysay ay waajib kugu noqon doonto. waayahay taariikhda HTML aan isla fiirina markaa. HTML waxaa sameeyey nin loo yaqaano Berners-Lee. waa magaciisa marka lasoo gaabiyo waaye. magaciisa asalka waxaa loo yaqaanaa Timothy John Berners-Lee. inaa meel ku qorati isku day. Timothy John Berners-Lee aa loo yaqaanaa. dhammaadka sanadka 1991 ayuu sameeyey. ninkan horta wuxuu u dhashay waxaa la yidhaahdaa dalka UK. waxaa loogu magacaabaa aabaha HTML
website-yada maanta la dhiso luqadda sahashay ama structure-ka loo sameeyo ninka u diyaariyey waxaa loo yaqaanaa Berners-Lee wuxuuna sameeyey dhamaadka markuu ahaa 1991 idan marka farshikii ugu horeeyay xilligaasaa lasoo saaray. farshika labaad waxaa loo yaqaanaa HTML2.0 waa farshikii ugu horeeyay ee toos loo fasaxo 1995 ayaa la fasaxay. yacni 1991 markii la sameeyey horumarintiisii iyo dadbaristii iyo wixii baa lagu jiray idan marka waxaa si toosa loo fasaxay sanadka markuu ahaa 1995 waa 4 sano kadib. waxaana magac la siiyey markaa HTML 2.0 waxaa ka dambeeyey markaa HTML 4.01 4.1 ama 4 waa kusoo gaabin kartaa asna waxa uu ahaa farshikii ugu caansanaa ee ay dadku wada isticmaalaan. HTML 2.0 wuu cusbaa dadku kumay badnayn laakiin markii farshikan HTML 4 lasoo saaray dadka aad ayay u isticmaaleen sanadka markuu ahaa 1999 wixii ka dambeeyey. inkastoo farshika ugu weyn ee aad loo isticmaalo uu ahaa HTML 4ka hadda waxaa aad loo isticmaalaa farshik ka dambeeya ee loo yaqaano HTML 5 oo ah kii hore ee HTML 4 oo la balaariyey kii unbaa wax lagu dardaray waxaana lasoo saaray sanadka markuu ahaa 2012 kaasaan ilaa hadda la isticmaalaa. idan marka taariikhdan inaad udgaraysato isku day markii ugu horeysay waxaa lasoo saaray 1991 waxaa la fasaxay oo aad loo isticmaalay dadka loo ogolaaday 1995 farshikii ugu badnaa ee aad loo isticmaalo wuxuu ahaa 1999 aa lasoo daayay ilaa 2012 laga soo gaaro. waxaa ka dambeeyey markaa mid loo yaqaano HTML 5 oo keliya ah kii 4kii la balaariyey waxaana isagana lasoo saaray markuu taariikhda ahayd 2012. haddaba yaa qaadan doona koorsadan intay socoto. koorsadan waxaa loogu talagalay cid walboo danaynaysa dhisidda website-yada ha noqdeen designers ama developers. designers waxaa kala jeedaa dad waxaa jira shaqadooda dhan ay tahay keliya in naqshada website-kan ay sameeyaan dadna developers waayo yacni website-kii dhan ay soo saaraan. inta ay koorsadu socoto waxaad ku qaadan doontaa practical examples tusaalooyin dhaba ayaan insha allah isla arki doonaa. waxaa ku qaadan doonaa quizzes waxaa ku qaadan doonaa assignments iyo wixii lamid ah. yacni quizzes waa waxa lagugu imtixaanaya cashirkan hadda aad qaadatay hadda sida muuqaalkan aad daawanay sidoo kale waxaa ku jira waxyaaba muhiim ah su-aala lagaa weydiin doonaa haddaadan ka jawaabin cashir kale uma gudbi kartid waxaa jiri doona assignments laysku diraayo sawir ayaa lagu siinayaa pagekaas oo kale soo diyaari adoo markaa qof kale aadan kasoo daawanin yacni xog adig kuu gaara soo sameey iyo wixii lamid insha allah. dhammaantoodna waxay kor u qaadi doonaan fahanka koorsadan aad u leedahay. maxaa lagaaga baahan yahay haddaba koorsada inaad qaadato. waxaa lagaaga baahan yahay kow inaad computer haysato. haddaad haysanin mobile waa isticmaali kartaa laakiin waxaan door bidaynaa oo ku celinayaa inaad haysato computer. maxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad fahan guud ka haysato isticmaalka computerkaaga. maxaa lagala jeedaa marka fahan guud inaad ka haysato inaad abuuran karto file iyo folders. file inaad abuuri karto folder meel lagu xareeyana khaanad gaara inaad u samaysan karto inaad wax ku qori karto faylka aad soo samaysatay sidoo kalena aad safgaraysan karto kaydsan karto inaad wax ka fahansan tahay noocyada sawirada ay ku yimaadaan sida JPEG iyo wixii lamid ah insha allah mid ayaa u arki doonaa dhammaantood. cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.